السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan Suldaan Media Pro in badan baynu kala maqnayn laakiin hadda isku soo noqonay soo noqodkeena maanta waxaan idin wada sheekadan waa waano Soomaalidu waanada dhegtaas ka gelisa taasi ka sii deysa marka waxaan rajayn doonaa inay bal sheekadan ay ku waana qaataan sheekadan waxay qusaysaa dalka Cumaan waxayna qusaysaa waliba Suldaankii ama boqorkii xilliga dalka Cumaan ka ahaa Suldaan Qaboos bin Saciid oo ahaa 1970 ilaa 2020 Suldaankan wuxuu lahaa maamuus u gooniya iyo dhaqan u gooniya waligii muusan tagin airportka si uu soo dhaweeyo madaxda dalalka kale isagoo maamuusaya ama inagu madaxdu markay dalka soo boqdaan wax tagay qofka ugu sareeya dalka inuu soo dhaweeyo haduu madaxweyne yimaado laakiin maalmaha kamida sheekadu way isbedeshay Suldaankii intuu baxay ayuu tagay airportka halkaas oo ku soo dhaweeyay madaxweynihii dalka India madaxweynihii dalka India oo ahaa xilliga 1992 ilaa 1997 Suldaankaas madaxweynahaas lagu magacaabi jiray Dr. Shankar Dayal Sharma markii meesha uu tagay wuxuu soo dhaweysiyaan hore loo arag maamuus qurux badan dawsin madaxweynimo loo soo dhaweeyo ka sii daranba kadibna markii qasriga madaxtooyada lagu soo noqday ama qasriga boqortooyada kolba dalkaas sidoo yahay ayaa saxafiyiintii ay la hoos ordeen mikrafoon ay leeyihiin Suldaan dhaqanka lagama baran caadadaada ma yahayn markaa maxaa isbedelay deetana intuu dhoole cadeeyay oo qoslay baa wuxuu yiri anigu ma soo dhaweyn madaxweyne daleed manaan dhaqankaygana ma yahayn inaan madaxweynayaasha dalalka soo dhaweeyo laakiin Sharma wuxuu ahaa buuri anigu shakhsi ahaantayda buuri waxaan ahaa shakhsi wax ku soo bartay dalka India gaar ahaan magaalada Boma laakiin Sharmana wuxuu ahaa macalinkaygii xilliga aniga baray dhaqanka wanaagsan akhlaaqda sida dadka loo soo dhaweeyo sida dadka mataqaana loo dhaqmo sida noloshan hadda lagu jiro looga bixi karo sida wax kasto adagoo noloshaada lamida ku soo wajaha saad uga bixi lahayd kadib anigu markaa macalinkayga waan soo dhaweeyay waxaan iga mudan yahay buuri wax inta ka badan waayo waa qofkii baray inaan noolaan karo xaqna uu igu leeyahay markaa inaan soo dhaweeyo anigu ma soo dhaweyn madaxweyne daleed marka inaga hadaba doon Soomaalinahay waanada iyo talada in qusaysa waxa weeyaan macallimiinteena xageen ku ognay ma la xiriirta macalinkaagi hadaba taladan uu siinay waxa weeyaan inta nolol kugu jirto ama naftu kugu jirto xiriiri macalinkaaga macalinkii waana maalin ku siiyay ama talo wanaagsan ku siiyay ama ku anaantay adoo qalad ku jira xiriiri inta gacal xiriir jiro waxaan kala talinayaa marka in macallimiintiina ilaalisaan xiriirisaan runtii waa sheeko yaro in yaro aan anigu ma taqaana idii soo ururiyay waana rajaynayaa sheekooyin badan oo qisooyin noocaas kale idinka sheekayn doono halkan Suldaan Media Pro subscribe saara waxaan idin rajaynayaa maalin wanaagsan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.